السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن اشتفتم أنا من محمد عبدية شلي بان أو أحد أهيد بان وحا magaaladan ii dhow magaalo madaxda gobolkan aan ku noolahay Jarmalka ah North Rhine-Westphalia la yiraahdo ayaa barnaamij ku saabsan organization-kan hadda aan adigu 2017 aasaasay baa maxaa la yiraahdaa dad aan isnaqaano baa waxay ugu casumeen inaan organization-ka iyo wuxuu u taagan yahay iyo hawlihiisa iyo adigu maxaa la dhahaa cuntada sida Soomaalida oo kale wixii aan markaa yaray soo diyaarin karna aan soo diyaariyo si dee wadanka dhadhankiisii iyo maaragtay xoogaa aan u soo bandhigo baahiyada aan ururkan u aas-aasay iyo Soomaaliyaba waayo dadka badankooda Soomaaliya markii loo sheego ama ay maqlaan aad tiraahdo Soomaali baan ahay dad badani runtii Soomaali ma yaqaanaan oo dhegtaasay ka maqleen laakiin marka u sheegtid bay maalmo ka bacdi kugu soo laaban markaas waxay ku leeyihiin Wikipedia-dan fiiriyay ama waa Google gareeyay wow Soomaaliya waa wadan khatara waa wadan saana yani negative wax badan oo negative ay kaaga ay markaa qofkii markaa uu kula soo laabanaya oo hadhow ku sheegaya marka adigu shalay maxaa la dhahaa waxaan tagay meeshaasaan tagay dhalinyaro Soomaaliyeed maasha Allah 4 dhalinyaro ah igala qayb qaadatay inkastoo lagu post gareeyay ama lagu share gareeyay gruubo badan oo WhatsApp-ka ah oo gobolkan ama maxaa la yiraahdaa agagaarkan magaaladan Düsseldorf maxaa la yiraahdaa dad jooga oo maaragtay WhatsApp-ka oo ajnabi isku jira Jarmal iyo ajnabi kale iyo Soomaali isku jirta waxaa jira gruubas noocaas ah oo aniguba aan ku jiro ala kulli xaal 4 dhalinyarada ah waa uga mahad celinayaa ee ka soo qayb gashay runtii laakiin su'aasha waxay ahayd oo badanaana runtii la weydiiyo aniga qof ahaan Soomaali ahaan waayo organization-ku dabcan wuxuu u taagan yahay waxyaalo badan oo mujtamaceena ku jiro negative inuu wax ka qabto ama at least uu garab istaaga dadkaas marka dabcan badanaa wadanka negative-kiisa sheegaysa waayo waxaad rabtaa in lagu support gareeyo in yani maxaa la dhahaa aad maarkin oo dadka kani ama heerka iyagu uga baxeen waxyaalaha aan runtii anigu kulleyba qof walba aragti gooni uu leeyahay waxyaalo badan iyo aragtiyaal badan waa lagu kala duwan yahay oo qof walbaba aragti u gooni ah buu leeyahay maadaama uu qof walbaba individual yahay ama individuum uu yahay marka qofa adiga de negative u aragtid baa aniga positive u arki karaa qofa adiga positive u aragtid baa aniga negative u arki karaa marka waa la kala duwan yahay marka waxaa jirta dabcan badanaa markii aad maxaa la dhahaa ka qayb qaadatid maxaa la dhahaa veranstaltung noocyadaas ah ama maxaa la dhahaa presentationo oo noocyadaas oo kale ah dabcan waxaad ka hadlaysaa waxyaalaha aad ururkan u aas-aastay ama organization-kan negative-ka inaad la dirirtid u baahan tahay anigu kulleyba badanaasaan sheegay waxa aan arkaa markaan anigu tayda ka hadlo oo aniga yani organization-ka waxa uu aasasay iyo wax aan rabo inaan ka hortago iyo wixii ugu kalifay iyo aragtida aan ka qabo yani inay wadankeeni wali ka jirto dhinaca kale waxaan ka ogaadaa oo marka ay ugu support gareeyaan inay iyaguna ka sheekeeyaan inkastoo 30 sano de wadankan aan ku sii dhawaa aan ku noolaa ogahay wax badan oo de positive-kooda ama negative-kooda ah laakiin haddana in ay iyaguna de sheegaan waxyaalaha ay iyaguba negative-kooda ay sheegaan in oo ku saabsan arinta marka aniga aan ka hadlayo sida maxaa la dhahaa dadka maaragtay baahiyaha gaarka qaba maxaa la dhahaa Jarmalka laftirkooda waxay leeyihiin maxaa la dhahaa sheeko dheer wadankan xataa waxaa jira in dadkan la leyn jiray marka laakiin way ka soo gudbeen marxaladaas oo waliba tilaabo 10 sano ka hor iyo maanta isku mid ma aha 10 sano ka hor aniga wadanka waa ku noolaa cunug jiran baa haystay
iyo maanta isku mid ma aha aad bay u kala duwan yihiin farqi weyn baa u kala dhexeeya marka taasi maxay ku tusaysaa iyagu mar walbaba yacni si maxaa la dhahaa continuan ah inay wax u bedelayaan oo ay rabaan inay wax u horumariyaan annagu laakiin weli meesheenii baan taaganahay marka calaa kulli xaal yaan warka idinku badanin waxyaalaha yacni maxaa la dhahaa la iweydiiyo baa waxay ka mid yihiin markii aad dabcan waxa aad ka dagaalamaysid waxaad ururkan u samaysay waxa aad rabtid inaad bedeshid waddankaagii aad rabtid waxaa lagu weydiinayaa dabcan waxa waddankaaga uu positive-ka ku yahay oo maxaa la dhahaa ay dadkaagu ku fiican yihiin marka calaa kulli xaal shalay badanaa aniga keligay baa meelaha qaarkood ahaa inkastoo aan ka xumahay oon jeclahay inay soomaali badani yacni aan meelo badan ka wada qayb qaadano laakiin badanaa ma dhacdo marka dhalinyaradii runtii iyagana waa la weydiiyey calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan ogaado adigu soomaali ahaan maxaad u aragtaa waddankeenu inuu positive ku yahay maxaad ka sheegi leed haddii lagu dhaho dee idinkuba dad waxaa tihiin shucuub ah dad waxaa tihiin shacab ah dad waxaa tihiin dowlad iyo ma aragtay qowmiyad dhan baa nahay qowmiyadda soomaaliyeed maxay ku fiican tahay maxaa laga sheegi karaa waayo haddaa qofka jarmalkaa weydiisid waddanka jarmalku shacabka jarmalku kala saar siyaasadda iyo waddanka burburkiisa iyo shacab ahaan qowmiyad ahaan waxaan nahay kala saara dhibka nagu dhacay hadda ka tag waxaad anigu soomaali qofka soomaaliga ah muxuu yahay ama shacabka soomaaliga ahi maxay ku fiican yihiin maxaan ka sheegi karnaa oo oran karnaa dadkeena soomaaliyeed dad noocaas ahaan ah dad noocaasa waayo jarmalka haddaa weydiisid waxay kuu sheegayaan dadka ay yihiin ya nooca ay yihiin waxay ku xun yihiin way kuu sheegayaan waxay ku fiican yihiin way kuu sheegayaan marka annagu maxaan ku fiicannahay maxaanse ku xunahay haddaan soomaali nahay su-aashaas badanaa waa la i weydiiyaa meel walbo aan tago yacni in lay dhaho okay negativekiina yacni meediyada iyo meel walbaan ka aragnaa laakiin positivekiina muxuu yahay maxaa ku fiican tihiin haddaa soomaali tihiin teeda kale waddanka jarmalka waxaa jira wax la yidhahdo vorurteile ya annaga laftirkeena dee vorurteile meel walbay jirtaa waa waxaynu naqaano laakiin kelmad ahaan annaga badanaa waxaa u malaysaa inaynaan luuqadeena soomaaliga ah aynaan wixii ku cabirin kelmad ku cabirin ya aan ku qiyaasin qofkii uu garan karo badanaa aynu meelo dhaadheer soo marmarno oo hadalka bointigiisa aynaan helin marka vorurteile waxa weeye waxbaan kaa aaminsana laakiin waxna way ka jiri karaan waxna kama jiri karaan ya waa vorurteile badanaa maxaa soomaalida laga aaminsan yahay halkan vorurteile badan baa jira soomaalida laga aaminsan yahay annaga soomaali ahaana vorurteile aan dadka kale maxaa la yidhahdaa ka aaminsanaha jira waxyaalo badan oo aysan ahayn oo aan ka aaminsanaho isugu sheekayno vorurteile teeda kale waa wax la ballaariyey oo ma arkinoo aan maxaa la dhahaa heblaayo taa ka sheegaysay heblaayo kale usii sheegtay heblaayo kale usii sheegtay wixii way faafeen waa sida maxaa la dhahaa been fakatay run ma gaadho kale ya waxyaalo badan oo vorurteile waxaa ku jira been ah ama annaga hanala ka aaminsanaada shacab ahaan ama annagu aan dadka kale ka aaminsanaano waxyaalo badan oo been ahaa ku jira ya waayo waxaa la ogaaday oo test badan ama maxaa la dhahaa daraasaad badan laga sameeyey hadal haddaa aniga hadda qofku iraahdo qofka tobnaad ama qofka shanaad qofka afaraad hadalkii siduu ahaa uguma tegaya si ka duwan buu ugu tegaya waana waxyaalaha keenaya dadku inay isqa qabsadaan in dagaalku bato in xumaantu badato ya marka calaa kulli xaal maxaa la dhahaa videogan waxaan rabaa walaalaha hadda kulleyba janalkeena daawada inay si walaaltinimo ay igu soo jawaabaan maxaad oran lahayd haddii lagu weydiiyo soomaalidu maxay ku fiican yihiin waa dad noocee ah soomaalidu yacni dad karactigo inaan hadda aniga idin maxaa la dhahaa ma rabo oon maxaa la afka wax idiin geliyo laakiin adiga qof walbo shakhsi soomaali aho markii lagu weydiiyo su-aasha ah positive-kiina noo sheeg waxyaalaha ku fiican tihiin noo sheeg soomaalidu waxay ku fiican yihiin noo sheeg maxaad oran lahayd bal su-aasha insha allah hala iiga soo jawaabo ya maxaa la dhahaa waxaan kaloo sameeyey dabcan badanaa waxaan isku dayaa markaan meelahaasoo kale tagaayo
inaan sambuus sameeyo yaa sambuuska soomaalida runtii kolleyba waxa u malaynaya qof walba soomaali wuu ogyahay caruurteeda markii iskuullada dhiganaysa xanaanada caruurta meel walban tago sambuuskaasaa aniga sameeyaa ama bajiya isku dayaa laakiin bajiyaha waa liiga fiican yahay sambuuskan brofi ku ahay sambuusa marka sameeyey dabcan xoogaana aan duubay anaa isku dayay bal inaan gabdhaha maaragtay ku xeel dheer dhinaca maxaa la dhahaa cunto karinta bal inay maaragtay iyagana iga soo bixiyaan xoogaa maxaa la dhahaa maxaa la oran jiray anigu kolleyba cuntada kuma fiicni qofku inuu runtiisa sheegtaa fiican cunto karin iyo maaragtay guri hagaajin labadaba waa liiga duceeyey laakiin waa ku khasbana haddaa ku khasbantahay dee waa khasbanta hooyaa tahay laakiin ma jecli runtii sidaa darteed waxaadan jeclaynta dadka inaad la qaybsatid waa laga fiican yahay ilaan hawshaydii yacni wax oo niyaddeedii kasoo go-ay maa laakiin gabdhaha walaalaha oo niyadahooda kasoo go-een waxa iyaga maaragtay markaa noo soo gudbinayo aan daawanaynaa bal ila fiiriya walaalayaal sambuuskan sameeyey inuu yahay iyo inaan naceebeeyey inkastoo gaaladu wax walbaba delicious iska leeyihiin maaragtay wax walbay cunaan oo asiisid runtii iyagu way ku qancayaan waxaan kaloo sameeyey shaah soomaali yacni maxaa la dhahaa iyagu badanaa jai tea bay ku leeyihiin oo hindigii ah laakiin dee hindiga caanay ku qasaan annagana maxaa la dhahaa biyaan ku karinayaan dhahay sonkor la-aana uga dhigaa waa u geeyaa maasha allah yacni asagana aad bay uga helaan runtii oo weliba waqtigan hadda oo maaragtay waqtigii qaboobihii iyo christmaskii iyo lasoo geli rabo waxyaalahan oo iyagu waqtigaasi isticmaalaan nalkaha oo ah maxaa la dhahaa in ii sheeg qorfihi maya dhagayaraheenii iyo qorfaha oo simd ah iyo cardamon oo maxaa la dhahaa heylka ah ingiba oo maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa ginger ama ii sheeg ama sanjabiishi yacni waxyaalahaas oo dhan waqtigaana aad loo isticmaalaa runtii way ka helaan markaas maxaa la dhahaa markaana waxaa rajeynayaa in qaar badan markaa ay maaragtay ilan ma idiin soo duubi karin runtii dadka meesha isugu yimid dad birabaad ahay ahaayeen marka lama ogoleyn maxaa la dhahaa in dadka filin laga duubo oo hadhow aad maaragtino si public ah usoo dhigtid youtube-ka ama facebooka gabar kaloo jarmalo oo aan isnaqaanaba saasoo kale waxay damacday inay maxaa la dhahaa sawiro ka samayso marka waxay yidhaahdeen may lama ogola meeshaan tagnina waxay ahayd Staates Museum Düsseldorf bay ahayd oo maxaa la dhahaa arrimaha kultuurka qaabilsan meeshan aniga waxaa igu casumay farcayn aan aniga laftirkayga ka tirsanahay ama urur oo jarmalkan ka dhisan oo isugu jira soomaali ma ahada ajnabi oo dhan soomaali anaaba ka ahada haddii dhalinyarada nagu soo biirtana waa okay laakiin waa ajnabiga iyo jarmalka isu tegay oo maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa mosaic farcayn baa la dhahaa mosaic waa dhagaxa qurqurxaha badan ee xataa aynu masaajidyada ku samaysana carabaha sameeyaan iyo halkaa musqulaha xataa way ku samaystaan ama jikadaa lagu sameeyaa mosaic marka waa midabo kala duwan yaa marka waxaa laga wadaa wax kala duwan inay qurux badan yihiin fikradaha kala duwan inay qurux badan yihiin annagana waxaynu rabnaa inaynu hal fikrad wada ahaano inaynu hal meel kulligan maxaa la dhahaa hal awr aan daba kacno oo aynu ahaano maaragtay awrtii isdaba socotay awrta laftirkooda oo isdaba socota awrba awrka ka horeysaan qaadkiisuu leeyahay iyo waxsaas waa tii dhihi jiray ratiba ka horeeya laftirkeeda haddaa fiirsid qofna qof kale jidkiisa ma mari karo awrna awrka kale lugtiisii ma noqon karo awrarkaas isdaba socda mid meesha lugta meeshuu dhiga mid ka kale ma dhigo hadduu dhigana isku lug ma ah ama uu ka lug weyn yahay oo in ka badan buu qaataa space ka badan ama space ka yar buu qaadanaya marka weligaa ha isku dayin inaa qof maxaa la yidhaahdaa maaragtay siduu yahay adigana aa noqotid adigu shaqsi baa tahay aragtidaadaa leedahay marka insha allah waan kasoo hadli doonaa taasna hadduu ilaahay idmo khayr baan rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu